السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ميرو بوجوكتين وحن الله وقت قدين وعناضو ولا ليال ولا لا يقول حرن أدي أدبني سلامي. أنت كبعدي وحرب ما أنت إني لو ذاقو موضوع أنجالها أنا هرت جارهان أدي تابتا أنجالها إني لو ذاقو موضوع عن خاصة وحن لو ذاقيا عن ربعنا لحظة سيجارة رجع سوماليات خاصة أبياشا والدك أما ويل كستو سوماليات وايكوا أنا أباهين هدي لا يقدروا بريتو أباين قنيان وحن جعلها إن كهذا موضوع قبلها يصير كرسين تودو أي تايسيد أي سامين توقيه لاتو نولشوده قبله سين أكسونهاي أما دمر سين أكسونهاي ونصف المجتمع إلهينا مركو أدونك أبوري آذن يا حوا أيو أبوري آذن بو أبوري كديبنا حوا إسقو حكمة دوكالها أنا تهاي إنه أدونك بين آذن كيمدي أي سي ترمان أدونك نساكو سي صعدة إلا أنت اللي كجاريو وقتها وأدونك دمانيو إن أيضا سيدا تهاي إلهي وحي نو تجي دستور أو قرانك منهج كقرانك iyo diinta islaamka ku salaysan oo waligeed ba ay diinta islaamku sal u ahayd ama dastuur u ahayd dadka ilaahay adduunkan keenay intaasoo anbiya oo rasuul ilaahay soo dirayna kulligood waxay dadka maaragtay u fidinayeen diinta islaamka ugu dambeeyay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa jira maqaadiir iyo macaayir ilaahay noloshana u tismeeyay dadka si ay ugu noolaadaan ilaahay adduunkan markuu dadka keenay مسؤولية وحو أوديبي رج أي أوديبي قفك الدمر كاسد إلهي وأبوري وكد ويسار رج إلهي وأبوري خلقي جوجو آد أي وكل دويهين إذا سدعت هاي إلهي وحاسكو أبوري إن النقدان تطلع معنا أو نلاشا سيتر مع وأنا حكمة وين بماشي كتيرتا مركز تي إلهي وحو مسؤولية مسؤول ورد الدمر كوارج لقى بلعبة عبها أبوه وشخصي هو جهرية جبردة سامين كويشة نولشيده حدي أبوه وجبردي سسيفي عنو سو كوريو أباها سي حتى وحلو بشارين يا موالد كاس إنه جنة قلو يعني واحد جرى حديث نبي قال سوري عليه الصلاة والسلام قف كيشان جبرود كوريا حديث هذا قرنا إيرهان صدح وحو قال يا جنة مركا وأرين وين صببت السيدة لجو ويرنا معها وحفظت كرسين تجبرد ويكد وانتي كرسين تويلك جبردو هديها شو عبوين أكسن حنان يكل جعل سيا حنان كيكل جعل كاسي ولا كريا قيب وين أي شخصية ذا أو كياشة جعل كي حنان كأو أبو سينا دير كهوية هاي أمان كهوية هاي وحكست أي أبيد كدارة مايسو wuxuu noqdaa wax qayb ka noqda shakhsiyada ay noqonayso bari iyo qofka ay noqonayso bari qayb weyn buu ayuu ku leeyahay ama uu ku qaataa gabadha aabuu soo koriyay si adag soo koriyay jacaylku soo koriyay shakhsiyadeeda si u foom gareysmo iyo gabadha aabaheed soo korin ama naglad gareeyo ihmaal ku sameeyay ama nolosheeda aw ku jirin isku mid ma aha gabdho badan maanta waxay la tacaalayaan oo adduunka korkiisa ugu dhibaataysan yihiin waa neglectionkii ka soo gaaray aabahood korsiintoodii dhantaalnayd ee aabahood qaybti ka ahayn ay gabdho badan maanta la tacaalayaan jacaylka ugu horeeya gabadhu waa aabaha weeyaan sanani sheegay aabaha doorkiisa ay gabadhan waxaan aaminsanahay waxa la yiraahdaa gabadhu waa hooyad bay ku dayataa hooyadu waa aasaaska mar walba laakiin waxa xanaanka iyo kalgacalka iyo amaanka badan si waa aabuhu markasta deer weeyaan baa la dhahaa xaruurtiisa oo dhawiil iyo gabadhba reerka dhan waa deer buu yahay laakiin gabadhaasi haddii deerka weydo bari markay weynaato waxa ku dhaca inay low self esteem hesho shakhsiyadeeda inay kalsoonida ay ka qabtaa ay hoos u dhacdo in taasina ay keento inay zaczacad ama khalkhal ay ku dhacaan mashaacirteeda dumarku waa dad mashaacir ka samaysan mashaacir bay ka samaysan yihiin mashaacirtaasi waxay u baahan tahay in la ilaaliyo oo la dhowro in biyo lagu shubo si ay waxa ugu fiican u soo saarto nabaadka waad aragtiin marka biyaha lagu shubo
sidoo ma aragtay aw de nabaadkaasi u kobco ama u koro laakiin nabaadka biyaha laga yareeyo ama nabaadka biyo lagu shubi waayo waa engegaa waana qalalaa dumarkuna saasay noqdaan marka qofka ugu horeey biyaha ku shubay seedka aw beere ilmihiisa gabadhiisa aan waa gabadha waxaan maanta ka hadlay waa aabaha weeyaan aabahaasi haduu aaba fiican noqdo gabadhaasi waa very lucky wayna si badan tahay qeyrkeedna wax badan bay maaragtay dhaafaysa laakiin aabuhu haduu meesha ka baxo gabadhaasi waxa laga yaabaa nolosha inay ku kaca kuftay inta soo jeer because ma garanayso shakhsiyadeedii zaczacad baa ku dhacday in shakhsiyadeedu adkaato ay si fiican ay isku baratana waxay muddo ay ka qaadanaysaa ama waqti ay ka qaadanaysaa si ay isku barato waa markii gidaar walba soo jidhay gidaar walba ay ka soo go'do ay marka dambe is ogaanaysaa meesha wax ka qaldameen iyo sababta dhibaatooyinkan oo dhan ay ugu dhaceen sababta advantage ka laga qaatay gabdhaha inta badan advantage baa laga qaataa ma faa'iido ayaa laga qaataa dad ay taras gaarayaan oo si sahula ama si fudud ay ku ay advantage ka qaata waa san soo sheegayna waa shakhsiyada kalsoonida isku qabta shakhsiyadeeda self esteem keeda qofka ay tahay ayay raadinaysaa ayna garanayn kalsooni total isku ma qabaysa gabadhaasi inay kalsooni isku qabto oo loo self esteem keega oo kor u kacana waxay ka qaadanaysaa waqti badan bay ka qaadanaysaa waa waqti ay gabdhaha qaarna ay nolosha ka wadacaan gabdhaha qaarna ay maaragtay ay noloshaasi adkayso meel iska soo saaraan labada un bay u kala baxaan marka dambe gabdho badan nolosha waxay ugu ciilan yihiin ban anu aaminsanahay anu hadalkayga soo koobaya waa neglectionkii ama doorkii aabaha ee meesha ka maqnaa waa very important weeyaan gabadhu markay gaadho teenager noqoto waqti guur markay gaadho hablaha aanan haysanin role model fiican oo aaba ama jacayl fiican aabaha ka haysan ama aabo si fiican u soo koriya aanan haysanin qof kasta waa aaminaan si fudud ay u aaminaan waa sababta iyagoo yaryar ay afka uga galaan dad horora rag dhar xidhan laakiin ruwaaye ah ay afka ka galaan oo si yaro fudud u aaminaan waayo waxay raadinayaan waxan ka maqan qalbigeygu waa faariq wax badan mashaacirta ilaahay uu ku abuuray oo qalashay awgeed waxay raadinaysaa mashaacirteedan iyo wixii ay soo weedeynay meel kale ka hesho ay raadinaysaa waa sababta qaar badan ay guurkay degdeg ugu guursadaan ay ugu degdegaan iyagoo yar advantage looga qaato weeyaan marka anu aabo kasta waxaan oran lahaa oo gabar dhalay walaal aabo مسؤول بو إلهي كاردقي بكس نبي يقول وحر عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيتي قف كستوحي لودي بيبو مسؤول كي برنا لغا حسابنا يعني مركا اتقوا الله في أولادكم إلهي وقع عبسد أولادين ويل يا قبر با ويل كوا كسو حالي دولا كمان توا قبر دو حان كهارلاي قبدوه ماشا أي دبتو كسو قاردان وحنا عمساناي ووالدك وقريق siiba aabaha waayo hooyadu waxa aaminsanay inay wax kasto karaankeyga inta badan ay samayso hooyada fiicanna inay caruur fiican soo saarto waan aaminsanay sidoo kale laakiin aabuhu isagiiba mas'uula isagiiba protector oo ilaaliye ah markuu aabo strong character fiican haysto oo diinta ku xiran oo mabaadi leh aw yahay caruurtiisana mabaadi ku koriyo jacayl ka yahay naxariisto awlaadaas way ka duwanaataa awlaada kale abayaasha qalafsan ma sheegay iyagu xataa jooga caruurtooda qalafka ku amana waxba siineen aabaha maqan waxba yani kama bedelna waa lamidun baan anu aaminsanahay laakiin aabuha noqdo aaba jooga sid wujuudkaaga sidaad ku tadbiitinaysaa waa inaad ilmahaaga ka warhaysid oo mashaa'irtiis ka warhaysid caruurteenu wax ma barteen ma cuneen ma cabeen ma seexdeen ma inta badan ka fikirna laakiin maskaxiyan iyo aqliyan mashaa'irtooda struggle inay qaar badan struggle bay ku jiraan dagaal dhexdooda mashaacirtooda ay la struggle garanayaan bay ku jiraan oo laga yaabo in cidna u sheeganin waayo ma wareysana caruurteena laakiin ilmaha markaad isagoo yar la saaxiibtid wax badan baad ogaanaysaa markaad ku xirantahay ilmaha isku xidhan tihiin ee connection fiican inaga dhaxeeyo wax badan baad ogaanaysaa oo ilmahan ka ogaanaysaa awlaada siiba gabdhuhu waa nusfal mujtamac waxa jira gabay ay yiraahdo Axmed Shawqi la yiraahdo oo gabayaya oo yiro caraba oo yiri hadii aad maaragtay gabar fiican hadaad barbaariso waxay ka dhigantahay shacab dhan baad soo wanaagsan baad soo saartay hadaad si fiican gabadha u barbaariso shacab wanaagsan baad soo saartay bay ka dhigantahay marka aan waxa aaminsan noloshu
إلهي وكرين آدم وقرأ أبورة لكن إلهي حاوي آدم وحو أبوري وحكمة إن تدكسي صعدان إن ترنكسي جرى إلا أنت تلاقي جاري حلقي أي دماء أو دماني وقتك مركا إن مسؤوليتنا قاعدنا كأبا يكهوية لكن ما أنت أنا تردارن كيجو أبا ياشا أيو ما عرفتي كوي جهي ويلو أذبون بريتو ولا واحد نقنص أبا you have to inaad habliheyna xataa hadaad walaal tahay gabadha walaashahay ka warhay mashaacirteeda ka warhay dumarku aad bay u mashaacir nugul yihiin mashaacirtooduna waa isbedelaan hormoonkoodu waa up and down bishii waxa laga yaabaa inay hal wiigo qura caadi tahay balse inta kale ay isbedelayso cawaadiftoodu isbedelaan mashaacirtoodu isbedelayaan inaan ka warhayno ogaano sida ilaahay dumarka u abuuray xaqa ay ka mudan yihiin mujtamaca bulshada أسرة أي كم مدينة إن أوجانو مجتمع واحد كسر جينا أنت بدن دمر كليدة إلهينا واقع إلهينا إن بدن دمر كحقوقه سو مواضيع بدن كسر هذا النبي قصده وكل عليه الصلاة والسلام وحي قدام بي إمارته وكدر دار ممكن نفتك بحيث واحد دمر روح لها رجع الدمر كان يقدر داريا رجع الدمر كان يقدر داريا because ودردار عجيبة ووحوين ويان كورك الأشياء نوابا مثال قليل دلاء لقى شيء أحد إله لقى شيء وكيجو ويناوين بلان إله لقى شيء وكيجو ويناوين أدون كيجو ويناوين إلهي وأتكي لكن واحد مدعين يدد كينو قيمه كورك قيمه دمر كلها قيمه أسرة المجتمع أسرك بلا ما قيمي أسرده أي لهايد با إن محي حيدان ليس كداي أما وربلو هاي وصابت كانت تضيع بدن شتات بدن عرورة بدن ونلاش كداي وشوت دبتي نوجو بدن تيدل يدي بد با ما يسوي دين ما حد يدي بد بدت كانوا دباتيسين وبد كانوا دباتيسين أنا وحنا آمسين ولي أمر جيب عشان قذا جبي أو أبا نمبر 1 هو يدنا وحنا أوران كرا ولا ذا قيمة أوران كرا دمر كلكم الجيران لكن كل جيل إن مسؤولية دينا أوجانا وحي تاي كنا صواب حنوين لكن أبو واتير كلو tirsayahay ee gabadha ama nolosheeda taxta sifri ka dhigi kara ama nolosheeda boqorad ka dhigi kara waa aabaha anunkeen labadaba aday ku xiran tahay marka mas'uuliyadeena aan garano aanan barano diinteenana aan barano macaan wallahi hadaan diinteena ku dhaqano waxba inaga ma xumaadeen waayo dad diintii ka tagay baan wax kasta imkay noogu dhacayaan diinteena hadaan macaan barano waxaan aaminsanahay inaan adduunka korkiisa janno lagu noolaanay cid walba janno ku noolaanayso laakiin dadku markay diinta baran waayaan diinteena ka tagaan qiyamkoodan iyo akhlaaqdooda dhan ba taxta sifir noqota marka ilaahay khayrkeena garansiiyo intaas maanta ku soo koobaya waana salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh